جمعة وناكسن داوديال ومركلة iyo horfadhi media iyo wararkii iyo dabcan falqeymaha nooga barateen daawadayaal dabcan maanta waa maalin falanqeyna gibahaanba waxaynu falqeynta maanta ku eegi doonaa waxay noqon doontaa barnaamijkan maanta maalin dabcan falqeyna noqon doona jimcaha waxaanu ku qaada dhigi doonaa horfadhi media oo markii ugu horeysay markaas ku sameysay baaritaan markaana xogo dheeraada ka raadisay bal halka ay salka ku hayso khilaafkii xoogganaa ee toddobaadkii hore ama labadii toddobaad ee ugu dambeeyay ama 10 maalmood ee u dambeeyay ka dhaxeeyay dawladaha Soomaaliya iyo Djibouti iyo cid markaasi ay loo maleynayo inay markaasi ay khaladka ugu badan dhinaca diblomaasiyadda gashay iyo arintu halka ay ka soo bilaabatay iyo sida ay ku dameysay iyo waliba sidoo kale dabcan inaynu qaada dhigno ama jaraha siyaasadeed ee hadeer aad moodo in isbedel xoogan uu ku yimid gibahaanba sida ay dawladda Soomaaliya oo la tacaamulaysa xiisadaha gobolka ka jira iyo isbedelada gobolka ka jira iyo qodobo kale oo dhinaca diblomaasiyadda iyo falaqeymo ah oo dabcan iyo warar kale oo dhinaca markaasi iyaguna sirdoonka oo ku ogaanay in dawladda madaxweyne Farmaajo ay wax badan ka bedeli doonto habkii hore ee dhexdhexaadnimada lagu ogaa arrimaha qaarkood iyo siyaasadda gibahaanba oo ay bedeshay dabcan waa maalin Jimcaha waa كي بشي سديدات لبادي كوني سديد يتمن أدواتش قيمها لا سين كودا أجنها هي أما وذا أكتهين سديد لباتنكي بشي هراء أيه هاد مركي مدحونها جمهورية الفدرالية الصومالية محمد عبد الله فرماجو وكتجي السعودال الرسمي وصدح معلومات قاطعي مجال السمراء حرب ضد الكاسي إريتريا إن السعودال كمدحونها ayaynu marka oreysa aynu saarana diiradda markii uu ka ambabaxayay dabcan ama uu madaxweynuhu dabcan uu ka tagayay magaalada Muqdisho in waliba dabcan in si shaaciyay oo la sii ogaa warbaahinta qaarkeedna way sii xigatay sida daraadeed horfadhi media waxay xaqiijisay isla markaana ogaatay in madaxda iyo diblomaasiyiinta magaalada Muqdisho jooga ee ka socda ama u jooga dalkaasi jamhuuriyadda Djibouti ee walaalaha nahay ay ku wargeliyeen madaxweynaha iyo waliba guftigii socdaalkiisa dalabaadka Djibouti iyo waliba sida ay tahay in qadiyada Djibouti iyo Eritrea kala dhaxaysa ee ku saabsan qadiyada xuduudda Ras Dumera iyo waliba haysashada ay dad markaasi ama askar ka tirsan ciidanka qaranka ee jamhuuriyadda Djibouti oo xabsiyada dalkaasi Eritrea ku jira inay tahay inay kala soo hadasho oo ay dabcan qadiyadahaas ay kala hadasho waxa la sheegay in arintaasi ay safaaradda iyo waliba mas'uuliyiinteeda ay kala hadleen madaxweyne Farmaajo ka hor intuusan ku tagin magaalada Asmara oo socdaal ku tagin waxayna si weyn uga codsadeen madaxweyne Farmaajo inuu arintaasi motion gareeyo ama arintaasi uu soo bandhigo kolka uu siyaasad afwarqay kula kulmo halkaasi waxyaalaha horfadhi media ogaatay waxa ay ahayd in marka arintan oo kale ama socdaalkan oo kale la sameeyo markaas madaxweynuhu dabcan inuu socdaalkan sameeyo in ay markaas safaaraddu ay waliba mas'uuliyiinta diblomaasiyiinta ay aad ugu tirtirsiyeen ama ay ka dalbadeen walaalahooda Soomaaliyeed inay kolkan oo kale ay fursadan isbedelka gobolka iyadoo laga faa'iideysanayo inay tahay in Eritrea uu hordhigo in ay hadii Eritrea doonayso inay Soomaaliya ku taageerto habsabi u socodka dib u soo celinta xiriirka labada dal iyo inay Soomaaliya ku biirto wadamada saxeexaya in Eritrea looga dalbo qaramada midoobay in cunaqabatayntii laga qaado gibahaanba saarneed dalkaasi in uu ku daro in dadka Soomaaliyeed ee reer Djibouti ee ku xiran magaalada ama u xiran dawladda dalkaasi dabcan kaligataliska ee madaxweynaha kaligitaliyaha ee dalkaasi Eritrea in uu soo daayo waxa la sheegay in arintaasi ay ahayd dhambaal iyo xasuusin dabcan madaxweynaha ay jamhuuriyadda Soomaaliya ay xasuusinayeen markaasi walaalaha Djibouti oo markaasi ay doonayeen inay dabcan ay ku ay fariinta isla markaana ay la wadaagaan dareenka dawladda iyo shacabka reer Djibouti ay ka qabaan socdaal kasta oo madaxweynaha Soomaaliya uu ku tago halkaasi taasi markaas waxa meesha ka saaraysaa dad badan oo laga yaabo inay isdhihi karayeen madaxweynaha Soomaaliya qof ama ruuxu leeyahay bini'aadan inuu ilaaway qadiyadaasi ama gibahaanba arintaas si kale uga hoos baxday waxa kale oo la yaab noqotay in horfadhi media ay markii koobaad ogaatay in kolkii madaxweynuhu soo noqday maalinimadii
markaasi uu kusoo noqday bishu ahayd 31 uu kusoo noqday magaalada Xamar xarunta dalka Soomaaliya uu kusoo noqday dabcan uu shirki jaraa'id iyo baaqi uu diray ahaa in Eritrea cunaqabateynta laga qaado inaysan Djibouti intaasi aysan markiiba ama aysan fudayd dhinaca warbaahinta aysan sameyn waxaa la sheegay in 2 maalmood oo dambe ay Djibouti iyo saraakiisheedu isku dayeen inay xiriir la sameeyaan ama ay la kulmaan madaxweynaha Soomaaliya isla markaana ay qatiyada intaysan warbaahinta kusoo bandhigin ay kala hadlaan waxaana la sheegay in safiirka dalka si aadan xasan aadan oo markaasi safiirka u fadhiya Djibouti dalka Soomaaliya uu geed gaaban iyo mid dheerba u koray in uu madaxweynaha fariintaasi gaarsiiyo madaxweynaha Soomaaliya isla markaana cabashada Djibouti uu ka dhigo mid marta markaasi Suuriyooyinka dhinaca diblomaasiyadda aysan noqon mid marta dhinaca warbaahinta ama la sooga jawaabo oo dabcan ama ay Djibouti ku cabato masraxa warbaahinta caalamka taasina waxaa la sheegay in ay gabi ahaanba xiriirkii ay la sameeyeen madaxtooyada Soomaaliya ka suurtoobi weyday dhinaca Soomaaliya ama dawladda dhexe Soomaaliya ka suurtoobi weyday iyo saraakiisha dhinaca madaxtooyada iyo warfaafinta u qaabilsan dawladda Soomaaliya oo iyaga la sheegay inay markaasi ay la tacaamuli waayeen ama ay xog markaasi ay dabcan doonayeen in la wadaagaan ay kaba yaraatay telefoonadana ka qaba waayeen ballamihina ay u suurtoobi weyday inay u sameeyaan ama ballan uga qabtaan xafiis qolyaha markaasi protocolka u qaabilsan iyo ballamaha madaxtooyada Soomaaliya fila Soomaaliya dhinaca Jamhuuriyadda Djibouti waxyaalaha kale yaab kale la ogaaday dabcan kamida ama horfadhi media ama wararka kale ee soo gaaray diblomaasiyadeed waxa kamida in Djibouti ay sidoo kale doonaysay ay aad iyo aad waliba u doonaysay in isbedelkan xoogan ee gobolka ka soconaya maadaama gobolka oo dhan uu isbedel xoogan uu ka jiro isla markaana ay u muuqato isbedelkan gobolka ka jira mid markaasi ay dhabarka dambe ay ku sido labada hogaamiye ee iyagu aad u dirirsanaa labada dal aad u dirirsanaa labadooda hogaamiye waa kan Ethiopia iyo kan Eritrea dalkaasi isku tagay Imaaraadka Carabta oo labada dal ee Soomaaliyeed ee Geeska Afrika ku yaala ay xurguf dadka Soomaaliyeed aan dhaho ay xurguf ay kala dhaxayso haatan ay doonaysay dawladda dalkaas Djibouti in ay Soomaalidu ayagu ay markaas iskaashadaan ama dhinacooda ay ugu yaraan ay ka wada saftaan sayesha waxa muuqata in dawladda Soomaaliya ay si kasma arintaasi ay uga hoosartay ama ay dabcan ay dawladda Djibouti ay u jalaafaysay inkasta oo waxyaalaha kale ee arintaasi taageeraya ay u muuqato in madaxweynaha Soomaaliya xafiiska madaxweynaha haday tahay xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo kan wasaaradda arrimaha dibadda midna kama hadal arintaasi waxayna u muuqatay arintaasi in la iska dhiga tiray oo markaas aad la soo dhiga maray taasna waxay aad iyo aad u muujisay in xushmad darro badan xagga Djibouti laga sameeyay ilaa hadeertana ma jirto markaas dawladda Soomaaliya garawshiyo arintaasi ay ka bixisay waxyaalaha kale ay tahay shacabka Soomaaliyeed inay ogaadaan horfadhi media baaritaankan ku ogaano waxa kamid ah in ciidamada Jamhuuriyadda Djibouti ee qalabka sida ee dalkaasi gabi ahaan leeyahay 100% marka la kala qaybiyo half kamida ama badh kamida ay u soo dirtay Soomaaliya isla markaana ay ku caawinayaan Soomaaliya inay cagiida dib isku taagto isla markaana ilaa xad ay ka dacadsan yihiin oo ka wanaagsan yihiin kana wax qabad badan yihiin kana dabcan si walba ugu dhow yihiin oo sokeeye uga yihiin ciidamada kale ee dalalka ee dabcan Afrikaanka ah ee ku sugan ee dalkeena ciidamadooda la aaminsan yahay inaysan wax badan aysan qabanin ama aysan ka qabanin dabcan markaasi arintaasi waxyaalaha kale ee markaasi ama dawladda Soomaaliya la ogaaday dawladda Djibouti ay hortay waxa kamid ah in ciidamadoodu xataa ay ka qayb qaataan dhibaatooyinka dhacay ee dabiiciga sida fatahaadihii ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka markaasi xarunta gobolka Hiiraan ka dhacay oo ahayd markaasi kuwo markaasi saameeyay dadka Soomaaliyeed ee halkaas ku dhaqan oo aad u halakay ama dhibaato xooggan u geystay noloshii dadkii magaalada xarunta waa gobolkaasi Hiiraan ee Beledweyne ku dhaqnaa runtiina waxa ay arintaasi noqotay mid arin kale oo yidideel leh waxa tusaale inoogu filan mid kamida madaxda ciidamada Uganda warqad ama maqaal oo qoray wargeyska la yiraahdo the foreign policy oo ah wargeysada caalamiga ah uu soo xiganay sarkaalkaasi waxyaalaha ama erayadii uu isticmaalay dawladda iyo dadka Soomaaliyeed wuxuu dabcan maruu ka hadlay inaysan suurtagal ahayn in ciidamo loo dhiso ama ciidamo ay dhisato dawladda Soomaaliya wuxuu mahmahan uga soo qaatay mahmahda Soomaalidu isticmaasho oo laga yaabo sarkaalkaasi oo aan magaciisa sheegin hase yeeshee wargeyska the foreign policy la hadlay wuxuu yiri doofaar sidiisoo ma daahir ma noqdo Soomaaliyana waa sidaas oo kale waa nadiifinaa hadana waa wasakh buud
وحروان كورنيل كترسن أما سركة أما تلية قاشان للسريع أو كترسن عيدن كأميسون طبعا عيدن كجبوتي دبتوي ككلا أميسون أي كسم يسمى مقالة مقدشة عيدن كيوغاندا هالنقدين أما كوا برونتي هالنقدين أما كوا كينيا يجونا كذا على ما كونفرتا أما تشوجا قبل هذا جبوين كان نقدين يعني دعوين كيسميان مرنا ما لمسوا ريبورت جرين أما لمسوا ورين وحنا عصوا كلا أما رقم حمرنا عصوا كلا إنه كل رقمين أما يتهيدت كباورت لتشيرسية ودوين كمقالة حمر لقول عيو أما سيدو كلا أي تاي طبعا وعندما الصوماليات أو ديك صوماليات له أو رقم صوماليات له أو أف صوماليات ودين صوماليات أما الدين إسلامه أو طبعا وحكست الصوماليات هاي سيدراد إن دولة الصومالية أرنتها جبوتي أي ضفرتو إسلام كان يسكر جمرتو ويران حتى أي حشمة كبير ويدو waxay noqotay arrin weyn oo aad ayaan daro u ah oo runtii dadka Soomaaliyeed ilaa hadda ay ka dursugayaan in waxyaalaha dhacdooyinka u dambeeyay dawladda Soomaaliyeed ee sameynayso gabi ahaan markaad eegto waxaad moodaa in habkii ama dadka Soomaaliyeed ee jiddiilooyinkii dhinaca wixii loo yaqaan nationalism kama wadaniyadii muuqanaysay ee dadka Soomaaliyeed islahaayeen xukuumadihii hore ee dabcan dalka soo maray waa looga raysanayaa waxaad moodaa inay arrintu haatan ay tahay jugjug meeshaadii joog sida daradeedna isbedel xoogan iyo dib u gurasho xoogan oo dhinaca dib u dhaca oo halkaas ka muuqanayo tusaale ahaan ballanqaadyadii xukuumadan ay sameysay ama dawladdan ay sameysay kamid ahayd in 2 sano gudahood wadanka amnigiisa wax laga qabanayo in ilaa xad la sameynayo diyaar garow ku aadan cod iyo qof oo hadda 15 bilood ay ka harsan tahay oo ilaa hadda aysan muuqan waxyaalaha muujinaya in ismayaashii ciidanka aad looga qayb qaadanayo in siyaasadda arrimaha dibadda ay noqon doonto mid laabta loo garaaco Soomaaliyada la muujiyo idil fiican baa jirtay waqtigii qadar xiriirka loo gooyay oo inkastoo dad badan oo Soomaaliyeed ama dad yani arrimaha aad ugu xeel dheer ay aaminsanayeen in saraakiil ka shaqeysa xafiiska madaxweynaha ay arintaasi ka dambeeyeen inaan qadar xiriirka loo goon oo qaarkood la aaminsan inay qadar xiriir leeyihiin oo arinta dawladda ku tirtirsiyeen waxay dadka qaarkood ama dadkii markaas dhaleelayay ee sheegayay inaysan arintu go'aan rasmi ahayn ay ku dhaleelayeen madaxda in ay arintaas u ahayd go'aan maslaxadeed oo dad gaara ay ka shaqeeyeen balse aysan ahayn ilaalin sharafta iyo qadiyada Soomaaliyada dabcan taasina waxay noqotay mid marka haatan soo ifbaxaysa wararka kale ee yaab kale ee jira ama dabcan ilaa hadda soo baxaya marka aynu eegno maqaalka ama warqadan lagu qoray wargeyska la yiraahdo the foreign policy waxay muujinaysaa in sida muuqata xataa ay jiraan balaleeyahay ciidamo fara badan oo tababaro kala duwan leh oo aan ciduba aqoonin cid ay ka amar qaataan oo sidoo kale ay jirtay isku daadsanaan xoogan oo xagga ciidamada oo dib u habeyntii ay dawladda Soomaaliya sheeganaysa ilaa hadda halbacad lagu lisay noqotay waxyaalaha kale ee Soomaalida aad u yaqaaneen ama xukuumadii hore ragaadi jiray waxay ahaayeen khilaafka ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha taas oo ah mid ay tahay in credit lagu siiyo dawladda hadda jirta balse waxa bedelkeedii taa bedelay wasiiro si trapela loo bedelay isla markaana xildhibaanada mooshin raaca ama mooshinka aad u jeclaa lagu wada bedelay wasiiro laga dhigay taasoo loo maleynayo inay dawladdu ay doonayso inay waqti dharasi ay noqoto khilaafkii madaxda iyo ka dhaxay jiray madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay noqdeen khilaaf ka dhaxeeya wasaaradaha iyo ra'iisul wasaaraha taasoo ay muujinayso in ugu yaraan intaas oo wasiir iyo intaas oo taliye ciidamadeed ugu yaraan tiro 8 wasiir la kala bedelay oo ilaa hadda hal wasiir aan la sababeyn sababta loo bedelay marka baaritaan lagu sameeyay ay noqotay maslaxad shakhsiyadeed iyo maslaxad maamulada qaarkood iyo maslaxad markaasi ilaa xad ku saabsan in markaasi shakhsi jacaysi ayadoo wasiirada qaarkood lagu bedelay dabcan wasiiro xataa kuwii jagada laga qaaday aad uga xagga aqoonta kartida iyo dabcan iyo ability-ga waxa la yiraahdo aad uga hooseeya oo runtii dadka qaarkood ay aad u la fajiceen oo wasiiro badan aad khubaro u ahaa ama khabiir kuwa waxyaalaha qaarkood dabcan markaasi la isku kala bedelay anagoo runtii aan jeclayna wasiiradaas waxaas magacaawno maadaama loo arki karo in wasiirada la kala bedelay qaarkood la kala jeclaysanayo haddana dabcan waa xaqiiq jirta